السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دawadayaal xilqadii hore ee taxanaha Cusmaaniyiinta waxaynu kaga warranay xukunkii Orkhan bin Cusmaan Bey. Sidaynu xilqadii hore kaga dhawaajinay bana maanta waxaynu ku eegi doonaa xilqadeenan haddii alla weyno ogolaado khaliifkii saddexaad ee dawladda Cusmaaniyiinta ahaana wiilkii Cusmaan Awoowaha oo ahaa ee la odhan jiray Muraad. aynu u galno muuqaalkeenna. Muraad bin Orkhan bin Uthman bin Artur al-Bey waxa uu ahaa wiil ay dhaleen Orkhan Bey iyo xaaskiisii Nulufar Hatun. waxa uu dhashay 29 bishii Juun 1326 miilaadiga. waxa uuna ku dhashay magaalada Busra ee aanu soo sheegnay xilqadii hore inuu aabihii Orkhan furtay. Muraad waxa uu xukunka la wareegay isagoo 36 jir ah markii ay taariikhdu ahayd 1359 miilaadiga. dhanka xaasaskiisa haddii aynu eegno waxa uu guursaday tiraba dhowr dumar ah oo qaar si dhaqan ah uu guursaday qaarna arrimo siyaasadeed dartood ay isu guursadeen. dumarkiisna waxaa ka mid ahaa 1 Tamara Hatun oo uu dhalay boqorkii Bulgaariyaanka ahaa ee la odhan jiray Ivan Alexander. 2 Basha Malik Hatun oo iyadana uu dhalay nin la odhan jiray Kizil Murad Bey. 3 Guldana Hatun iyo weliba gabadh afraad oo iyadana la odhan jiray Julfik Hatun. waxayna u dhaleen carruur wiilal iyo gabdhaba leh waxaana la kala odhan jiray wiilashiisa oo 3 ahaa. 1 Sawaji Jalabi Bey oo ahaa wiilka ugu yaraa carruurtiisa. wiilkan hooyadii taariikhdu ma xusin. 2 Bayazid Bey oo ay u dhashay Julfik Hatun noqon doonana ninka dhaxli doona carshiga dawladda Cusmaaniyiinta. iyo wiilka saddexaad oo la odhan jiray Yaqub Jalabi. wax habla ahna Muraad waxa uu dhalay 2 hablood oo la kala odhan jiray Suldana Hatun iyo Nafisa Hatun. dhanka noloshiisa gaarka ah markaynu ka nimaadno daawadayaal waxaynu eegaynaa guulihii iyo furashooyinkii uu Muraad sameeyey. marka hore inta aynaan tirinba meelaha uu qabsaday waxaa muhiim ah inaad ogaato daawade in ninkan lagu naanaysi jiray aabihii furashada ama Abul Fatuuxaat. haddii aad xasuusataan xilqadii hore waxaynu sheegnay in Orkhan dhulkii uu dawladda gaadhsiiyey ahaa 95,000 kilomitir square. halkaas ayuuna Muraad ka sii ambaqaaday riyadii iyo shaqadii awaawiyaashii waxa uuna gaadhsiiyey dhulkii dawladda in ka badan 500,000 kilomitir square. run ahaantii waa dhul aad iyo aad u ballaadhan oo 5 jeer ka weyn dhulkii dawladdu ahayd markii uu xilka la wareegay. waxa uuna furtay wadamada maanta loo yaqaan Bulgaria, Kriega, Serbia, Albania, Kosovo ilaa iyo bariga Yurub ayuuna socday. waxayna noqdeen ciidamadiisu libaaxyo aan ciidaba waabin karin. dawladihii reer Yurubna waxay u kala jabeen kuwa isdhiibo oo jizya bixiya iyo kuwa isxulafaysto oo dagaal la iclaamiya. balse markan waxaa muuqatay in horu socodka Cusmaaniyiinta aan la joojin karin. xataa waxay ciidamada Muraad awoodayeen inay ka tallaabaan webigii Mriij oo ah maanta webiga kala qaybiya Turkiga iyo Greega. markaas ayay cabsi aad u daran soo wajahday imbraadorkii u tarin jiray Orthodoxkii deganaa bariga Yurub. waxaana dhacday inuu boobkii kiniisadda Kaatooliga haystay ee aynu soo sheegnay inay cadowga ahaayeen uu ka doonto caawimaad. xataa waxaa la sheegay inuu caqiidadiisii Orthodoxnimada uga tanaasulay arrintan darteed maadaama uu ogaa inaanay Cusmaaniyiintu rag la joojin kara ahayn marnabana ayna seegi doonin dhulkiisa. way isbahaysteen weliba isbahaysi aad u xooggan ayay isbahaysteen oo ka koobnaa wadamada maanta loo yaqaan Hungary, Bosnia, Bulgaria iyo dhammaan wixii ciidan saliibiyiin ahaa ee ay helayeen. waxaana la iclaamiyay dagaal aad iyo aad u weyn oo lala galo laguna hor istaago furashooyinka islaamiga ah ee dawladda Cusmaaniyiinta. waxaana ciidanka reer Yurub ee soo habar wacday iyo ciidankii dawladda Cusmaaniyiintu fooda isku dareen goob la odhan jiray Martiza. macrikadana waxaa loogu magac daray Macrikatu Hilaal as-Sarb. dagaalkan laxaadka lahaa reer Yurub intii ay awoodayeen waxba lama aysan hadhin balse haddana waa la jebiyey oo weliba waxa ay kala kulmeen muslimiintii guuldarro aad u fool xun. waxaana caddaatay in ciidamada libaaxyada ah ee dawladda Cusmaaniyiinta cidina hor istaagi kareen. mar kale saliibiyiintii isma aysan dhiibin waxay iclaamiyeen dagaal labaad oo ka dhan ah muslimiinta. waxaana loogu magac daray dagaalkaas dagaalkii Martiza ee labaad Macrikatu Martiza athaniya. balse haddana waxaa mar labaad cagta la mariyay saliibiyiintii isu soo urursatay oo waxaa ku guulaystay dawladda Cusmaaniyiinta. dagaalkaas kadib waxaa dawladda Cusmaaniyiinta ku soo biiray xukunkoodana hoos geeyay dawlado yaryar oo badan kuwaas oo markii hore ka madax adeegayeen inay Cusmaaniyiinta hoos yimaadaan.
Muraad ibn Orkhan isagoo dhex wareegaya bariga qaaradda Yurub furanayana dalal badan ayaa waxaa soo yeedhay war ah in qoyskii boqortooyada khilaaf ka taagan yahay. dabcan waa caruurtiisii iyo xaasaskiisii. khilaafkan oo noqday kii ugu horreeyay ee ka dhex xurta qoyska boqortooyada dawladda Cusmaaniyiinta. markaas ayuu Muraad ku khasbanaaday inuu Anatolia ku soo laabto si uu arrimahan u soo xalliyo. balse waxaa dhacday soo laabashadiisiiba in laga adkaado qaybo ka mid ah ciidamadiisii oo ku sugnaa aagga waddanka Bosnia. tanina waxay gogol xaad u ahayd mid ka mid ah dagaaladii ugu yaabka badnaa ee soo mara taariikhda. waa dagaalkii Kosovo ee 1389 miilaadiga. dagaalka Kosovo waxa uu ahaa dagaal ay soo bahaysteen dawladihii reer Yurub, waxayna la dagaalamayeen kaliya horun ka mid ah ciidamadii Cusmaaniyiinta oo ahayd horuntii ku sugnayd aagga waddanka Kosovo. balse waxaa madax u ahaa suldaankii dawladda ee Muraad oo ka soo laabtay Anatolia. inkastoo laga tiro badnaa ciidamada muslimiinta ah, haddana midnimada ciidankooda, iimaankooda qawiga ah iyo nasrigii ee Badartii waxa ay muddo 8 saacadood gudahooda ku jabiyeen oo ay cagta ku mariyeen gaaladii soo habar wacatay ee wadamada reer Yurub. balse haliye waliba dhamaad buu leeyahay ee waxaa dagaalkan ku shahiiday hogaamiyihii cadaaladda iyo furashooyinka ee Muraad ibn Orkhan Bey. waxayna taariikhdu ahayd maalinka uu geesigaasi shahiiday 15 Juun 1389 miilaadiga. alla naxariisti jannaha ka waraabiye. dhulka uu dawladda gaarsiiyeyna waxa uu ahaa sideen hore u soo sheegnayba 500,000 oo kiiloomitir square. kadib dhimashadiisii waxaa xilka la wareegay wiilkiisii Bayazid. halqada soo socota ayaynuna ku eegi doonaa insha Allah xukunkii Bayazid. si aad ula socoto taawada taxanaha iyo taariikhda islaamka nagu soo biro subscribe channelka. sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.